gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenyana murwada kursiga haweenka Canab suubow ayaa booqasho taariikhi ah waxa ay ku booqatay xabsiga magaalada Garissa ee loo yaqaano Garissa Main Prison ayaa waxa ay booqatay fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan waxayna soo booqatay maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada Garissa. haddaba warbixin arrinka ku aadan waxay noo soo diray wariyahana Hashim aw Barar. murwada ku fadhida kursiga haweenka ismaamulka Garissa Marwa Canab suubow ayaa booqasho taariikhi ah ku tagtay xarunta Garissa Main Prison halkaasi ay ku xiran yihiin boqolaal maxbuus falal dambiyeedyo kala duwan loo soo xiray. murwada ayaa xarunta maxbuus ee magaalada Garissa gaarsiisay raashin ay ugu tala gashay xilligan Ramadaanka in muslimiinta ku soo mahayay gudaha xabsiga ay u isticmaalaan anfurka iyo waliba suxuurta. meesha loo aqaano prisonta ama maxbuusta ku xareysan ayaan maanta soo booqanay. waxaan dareemay dad muslimiin baa u badan horta prisonta waqti barakeysanna waa lagu jiraa oo waqti Ramadaan ah. waxaan dareemay cuntada ay meesha looga kariyo cunto fiican inay ahayn oo wax cunto hataa ay haysanin. marka maanta waxaan sameeyay raashin fara badan ayaan u gaday. meesha waan aaday aniga iyo waxaan israacnay MCA meesha laga soo doortay iyay. marka waan booqanay raashin fara badan iyo bariis iyo timir iyo sokor iyo saliid iskugu jirto ayaan u geeyay. wallahi maanta way farxeen zaid bay u farxeen waayo dad muslimiin oo xurriyad aan haysanin oo seel ku jiraan waay. murwada ayaa dhageysatay cabashada qaar ka mid ah dhibanayaasha aan ku qanacsanayn xukunka ay ku riday maxkamaddu. kuwa waxaa jirta wax yar lagu soo xukumay, kuwa waxaa jirta hataa plot meel isku haysto. plotna qof 10 sano looma xiri karo oo qof naf gooye ma ahan. arrimaha naftooda waxaan rabaa inaan dabagal aan ku sameeyo oo aan dabagalo oo aan sida ugu dhaqsi badan ayaga naftooda aan jawaab ka soo siiyo oo aan xoogayga iyo maalkayga iyo aqligayga aan isticmaalo oo dawladda sare aan dhaxgalo oo insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inaan dhaxgalaan rabaa Hashim Barar RTN Garissa.